بسم الله وتلاوة الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. halkan aan ku sugan nahay caawa waxaan kaga hadlaynaa shaacinta shirweynaha guud ee dhalinyarada beelaha. caawa ay taariikhdu tahay 26 bisha 9aad 2021 isla markaana habeen axad ah oo isniin soo galayso guddiga qabanqaabada shirweynaha dhalinyarada beelweynta Arab waxay halkan ka shaacinaysaa in shirka dhalinyarada beelweynta Arab uu qabsoomi doono haddii ay faydo 6 bisha 10aad 2021 kuna qabsoomi doono caasimadda dowladda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. waxa xusid mudan in shirkan ay ka soo qayb gali doonaan haddii ay faydo ergooyinka kala iman doona gobolada Soomaaliland ee beesha degto iyo mandaqada Geeska Afrika wadamada ka tirsan ee beesha degto sidoo kale sida wadamada Djibouti, Ethiopia iyo Soomaaliya. qabanqaabada shirka dhalinyarada beelweynta Arab waxay soo socotay muddo 3 bilood ah iyadoo uu qabsoomida shirka dhalinyarada beelweynta Arab wargelin iyo wada tashi lagala sameeyay dhammaan noocyada kala duwan ama qaybaha kala duwan ee beesha ay khusayso. siyaasi daraadii guddiga qabanqaabada shirweynaha dhalinyarada beelweynta Arab waxay ugu baaqaysaa dhammaan ergooyinka ka soo qayb galaya shirweynaha dhalinyarada beelweynta Arab inay u diyaar garoobaan sida ay shirka uga soo qayb gali lahaayeen isla markaana ay waqtiga aad iyo aad u ilaaliyaan anagoo ka codsanayna in runtii dheydka aan sheegnay ay aad u dhigtaan iyo maalinta oo ah maalin Arbaca ah 6 bisha 10aad 2021. taasi daraadeed guddiga qabanqaabada shirweynaha dhalinyarada beelweynta Arab waxay ugu baaqaysaa dhammaan ergooyinka sharafta leh ee ka soo qayb galaya shirweynaha iskaga kala imanaya runtii wadamada gobolada Djibouti, Soomaaliland ee beesha degtay wadamada Geeska Afrika inay waqtiga dhowraan. Axmed Aadan Rooble afayeenka guddiga qabanqaabada shirweynaha dhalinyarada beelweynta Arab. anaga ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga qabanqaabada shirweynaha beelweynta dhalinyarada Arab waxaan halkan uga mahadnaqaynaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay intii uu socday wada tashiga abaabulka iyo qabanqaabada shirka dhalinyarada beelweynta Arab ee la qabanayay cid kasta oo gacan naga siisay oo nagala qayb qaadatay 3 bilood oo socday waan u mahadnaqaynaa. waxa kale oo aan baaq u dirayaa dhammaan dhalinyarada ah wiilal iyo gabdhaba inay ajiibaan oo ka qayb qaataan shirkaas qabsoomaya ee ka dhacay magaalada Hargeysa ay nagala soo qayb galaan. aniga oo magacaygu yahay Faysal Cabdiraxmaan Madar ahna gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ee shirweynaha dhalinyarada ee beelweynta Arab waxa aan halkan runtii bulshada Soomaaliland gaar ahaan beelweynta Arab aan u sheegayaa in shirka dhawaan insha Allah taala ka qabsoomi doona magaalada Hargeysa uu yahay shir ay ka tashi oo khuseeya dhalinyarada beelweynta Arab. shirkaas oo runtii maslaxadda iyo aayaha dhalinyarada beesha laga hadlayo oo laga sheekaynayo runtii waa shir horumarineed oo la doonayo in dhalinyaradu ay ku tashadaan aayahooda kaga tashadaan. shirkan habraaca loo adeegsanayo runtii waa habraac 3 bilood ugu dambeeyay laga soo shaqaynayay dhalinyarada aqoon-yahanka ee dabadeeda taagan baa runtii ka soo shaqaynaysay si fiican oo qurux badan oo hufan ayay wada soo shaqaynaysay. wada tashi ballaaranna sidii la sheegay way kala yeesheen maxaa ku dhaca dhinacyada ay khusayso. marka waxaan ugu baaqayaa beelweynta Arab meel kasta ay joogaan in maadaama shirkan uu yahay shirka turjubaya danta qaranka oo horumarka beesha dhalinyarada especially lagaga hadlayo inay si weyn ula socdaan ugana soo qayb galaan dibad iyo gudaba